السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل المقال عصبي ولا شيء ورسن عبد الله يوتيوب channel كايق داون اسمه كقولي سنولشة فضلا هذا يقول شكرا سبسكرايب هذا اللي جو جرتني لايك شير كومنت سوق قاعد وحي فير كذا وانا كم هسنتين سيد قروح بدنا إلى سعوتين maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta ka dhacda qardho waxaan uga sii daran muuqaalkan ila daawada bilaaway dhamaad adiga hadaa wax awoodin walaalkaaga awooda u sheer garee si uu u arko muuqaalkan hadduu awoodo soo wax u taro walaasheena daadadkii fatahaati waxaa ka qaaday 3 caruur iyo wixii ay ku noolood dhammaan waa dareemi kartaa waxaa xanuuna hal cunug oo dhashay markuu ka saqiiro macadala aad u jeedin ilmahaaga markay biyo kala tagaan 3 cunug xanuunku waa dareemi kartaa markay idinka hor dhicin muuqaalka ila daawo bilaaway dhamaad waxaa maanta baxsatid naftaada waxa ka qaaday naftaada un baa meel u dhigtay maxaa yeelay waxa baxsatid adiga ayaa maalinta qiyaam heli doono ku caawi waxaad awoodo nambarkeedana meesha soo dhigaya khayr iyo caafimaad iyo iigu noolaada waxa naftaada ka qaado isla naftaada ayaa meel u dhigaysa waa keed ku yaala maalinta qiyaamo waxa awoodo ku caawi walaasheedan dhibaataysan ee murugada hayso ee 3 caruur ah ee daadka kala tageen ama fatahaati qarrabiyaha qaadan ubadkeedii ku caawi waxaad awoodo hadaad caawin karin u gudbi fariintan oo walaashin soo dirtay dadka kale waxa laga yaabaa aad hadaa awoodin qof kale oo awoodo inaad gaarsiiso oo meeshaasina ilaahay uga soo qaado wax soo qaadka ilaahay baa iskale waana mahadsantihiin ayay intay daaqadaha ka soo galeen saddexdeeda caruura iyadoo arkaysa la bixin calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan halkani waa qardho waxaan walaalayaal maanta soo booqday oon la jooga walaasheen Nasra Xasan Ibraahim oo ah gabadhaas aadka udka da'da yar oo masiibadii ka dhacday magaalada Qardho ay ku weyday saddexdeedii caruurta waxaynu nahay ummad islaam waxaa ilaahay ina faray inaynu isu naxariisano isu damqano hoos isu fiirino waa dareemi kartaan xanuunka ay leedahay marka laga hadlayo ubad ilaahay ku siiyey oo haddana kaala noqday hal cunug ayaynaan awoodin in aynu ku qanacno oo qalbideena iyo niyadeennu ay ku samaato marka 3 ilmaan adigoo weliba qof aad iyo aad u dayan ay ku dhaafaan waa dareemi kartaan xanuunkeeda Nasra waxay lahayd 3 caruur ah 3 gabdhood bay lahayd sida la inoo sheegay markii ay damacday in ay biyihii faraha badnaa ee guriga soo gelayay ay albaabkii damacday inay ka xirto ayay intay daaqadaha ka soo galeen saddexdeeda caruura iyadoo arkaysa la bixin qoftaas aadka u da'daya oo aad u jeedaan weye muuqaalkeedii nolosheedu siday u egyihiin waxaa laga yaabaa beri ka hor inay sidaan ka qurux badnayd laakiin maanta xaaladada siday tahay waad u jeedaan abaayo Nasro waxaan ku leeyahay waa ku soo booqday waa kula xanuunsanayaa waa dareemayaa meesha xaaladaadu marayso aabbaanahay ubad baan dhalay ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu samir iyo iimaan kaa siiyo ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa inuu bedel khayr qaba kugu bedelo waad yar tahay niyadu yay kaa dhiman ha calool xumaan waa kula jirnaa waa kula joogaynaa waa kaa warhaynaynaa qof walba oo islaam ah oo halkaa naga daawaray waxaan ilaahay hortiisa idinku weydiinaynaa inaad walaasheen ubadkeedu ma soo celin karno aad u ducaysaan in ilaahay niyadu u qaboojiyo wax allaalayo waxaad heli kartaan aad u soo dirtaan telefoonkeedu waa 2529 eber 781 telefoon golisay haysataa qarnay ku sugan tahay xawaaladaha qarda oo dhan waxbaa loogu sugtiri karaa magaceeda xawaalada looga yeerayaa magaceeda keliya fadlan ha lagu soo qoro lacagta magaceeda ha lagu soo qoro magaceedu waa Nasra Xasan Ibraahim qarnay joogtaa qof walbo islaam wax sadaqaysanay gabadhaas xawaaladaha waxa ugu soo diro gabadhaas aynu garab istaagno gabadhaas haddaynan wax kala tari karin nolosheena aynu dib u dhisno
aan isku dayno inaynu garab istaagno oo wax ay ku qanacdo inay ehel leedahay walaal leedahay asxaab leedahay dad islaama leedahay aynu u qaban walaasheen nasro xaaladaada ka waran hadda waa fiican laakiin cawdkii waa iska jirtaa waa fiicanahay ilaah mahad iskale ilaah mahad iskale waxaa ka warantaa walal macaan adigoo arkay carruurta ku dhaafeen miya waa u jeeda carruurtaada markay ka qaadanayeen albaabka markii hore way xidhnaayeen walaal albaabka way xidhnaa biyarkii waan fiicsaday kadibna ilmahel baanaa isu dhiganayay biyo walaalay soo galay oo dareemay oo anigii qooyo waan kacay carruurtii baan kulli waxa wada dafay guri 3 minti marka lagu gaaro buu ciyaarkii la dabaashay haddaan la dabaashayna guryo markay isku dibeen biyo albaabka naga soo galay albaabka lagu soo tuuray kadib baan biyo wada raacnay ciyaarkiina anaa u jeeda oo anigana badii u dareemay walaal waxay sheegtay ilaahay baa naga badbaadiyay anigana tagay ilaahay baa buu mahad iskale taana ka hela wax kasta qoraal ku dhacaa walaalayaal waxaan idinka dalbanayaa inaynu walaasheenu dadaalno inaynu walaasheed u soo jawaabno sida ugu dhaqsaa badan inaynu walaashay garab istaagno soomaaliya waxaa laydinku yaqaan dad rixina dad islaama dad wanaagsan waxa maanta oo rabadaana gabadhaa yartaa ku dhacay qof walba oo waxa weeyaan cibro inoo tahay wadda inoo tahay ku dayashaa laynaga rabaa inaynu la xanuunsanaa laynaga rabaa inaynu la xanuunsanaa laynaga rabaa ubadkeeda ma soo celi karno nafteenna inaan meel ku ogeyn ilaaha subxaana watacaala baynu baryaynaa waxaa idinka rajaynayaa gabadhaasi waxay ku qanacday inay idinka hesho haddaad soomaali tihiin haddaad soomaaliya joogtid numberku waa local cumar numberkiidii walaal meel ku qoraya numberku waa local haddaad qarda iyo aageeda joogtid numberku waxa weeye 25 eber 781 481 25290-781-4818 haddaad soomaaliya joogtid walaalayaal nambarkaas ayaad sahalkeeda lacag ugu soo diri kartaan haddaa adduunka dacaladiisa joogtaan waxaan idinka dalbayaa inaa xawaalada kugu dhow aan gabadhaa yartaa u tagtaan aan gabadhaa yartaa soo garab istaagtaan haddaa community isugu day kartaan waddan iyo degmo iyo iyo deegaan walaalayaal waa idin baryayaa ilaahay hortiisaan wax idinku weydiisanaynaa gabadhaa yartaayo walaasheena oo murugada iyo tiraanyada intaas ay gaarsiisay oo maanta halkaa fadhida gurigaa wax dhex yaalla ma jira aan fadhino waad ujeedaan siduu yahay wax dhex yaal hal joodari baa dhex yaal dharna intaasay ka wadataa qof walba oo islaama qof walba oo rixina qof walba oo ehela qof walba oo soomaaliya waxaan ilaahay hortiisa idinku weydiisanaynaa inaad qiimaysaan xaaladda walaasheen nasro ku sugantaa maanta nasre xasan ibraahim weye magaceedu dadkii uu lifekii hore dhaafay ama markii hore telefoonka sheegayay telefoonkeedu waa 2529 eber 781 magaceedaa ku qoran nasre xasan ibraahim ayaa ku qoran dadka adduunka dacaladiisa joogaan xawaaladaha ayaa rajaynanaa inay wax kusoo marin doonaan dadka waddan gudihiisa joogaana nambarkaas sahalka ayaa rajaynana inay wax kusoo diri doonaan nambarkoo rasmiya waa idinla wadaagi doonaa via facebook haddii alla karaan noqdo waxaan idinka dalbayaa inaynu garabkeeda istaagno inay dareento inay islaam tahay inay soomaali tahay inay dad macaan ka dhalatay dad baga wanaagsan ka dhalatay maanta sadaqadaynu la baxna iyadoo ramadaana meesha ina gaarsiin karta waad garan kartaa waxaan anigu go-aansaday maanta wax kale ma tari karo afrikaan la joogaa naftaydana meel kuma ogi laakiin waxaan go-aansaday inaan intaan u imaado tuso xanuunka ay dareemayso aabbaarahay gabdhaha ka tegay ka dhintay aniga curadayda waa gabar gabadh qiimahay leeda waa garan kartaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi qofka uu gabar siiyo waa ku manna sheegtaa gabar baa ku siiyey manfaca iyo wanaagay leedahay gabar waa garan kartaa naxariisteeda waa garan kartaa dulqaadkeeda waa garan kartaa walaalayaal aan nasre garab istaagno aan nasre u qareenno
aan nasro wax allaali wixii karaankeenna aan la garab istaagno oo walaasheen meesha ay fadhido maantay aan ka dulqaadno intaasaan si xurmo iyo walaaltinimo idinkaga codsanayaa walaashayna waxaan leeyahay ilaahay waxaan kaaga rajaynaa badan khayr qaba waa kula joognaa waddanka waa ku soo xiriirinaynaa ciddii kaloo akhbaartaada na soo weydiisana si toosa baan kugu soo xiriirin doonaa haddii aan la yidhahdo waa kaa warhayrinaa ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu qabriga kuu qaboojiyo amaayo ilaahay qabriga inuu kuu dejiyo ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu bedel khayr qaba kusiiyo waa yar tahay niyadiyay kaa dhiman waad helaysaa intii in ka badan insha allah ilaah subxaana watacaala ku weydiinaynaa niyad bay naga tahay waa ka xumaanay waa dareemaynaa wayna dhibaysaa maaha inaan ku farxsannahay xanuunkaaga walaal gacado ilaahay kuu boogadhayaan ku leeyahay dulqaada inta ka horraysa xaashaa lilah wax walba waynoo hagaagayaan allah ku barakeeyo walaalayaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan baa ugu soo jawaabtaan waxaan si gooniya ula hadlayaa dadka wax haysta oo ama ganacsatada ama siyaasadda ku jira ama dadka kale oo waxa weeyaan political figureska ah qof walba oo heli kara hanti wax dheer isaga inuu walaasheedan hawsha iyadaa kala qayb qaataan rajaynayna usoo mariya xawaalada uguna soo dira telefoonkan ah 2529 ebe 78148 25290 الله يدين شرفه وحبيب فرح وحان مهانتي نصيب وياش إلى صوبه ولا شيء نصر حسن إبراهيم sidoo kale waxa inala jooga oo hadda guriga qolkayna wala sugan saygeedii walaalkay Umar marka xaasha lillahi baan leeyahay hawsha iyada halkaasay inuu ahaanaysa ilaahay idin barakeeyo waxaan idinka rajaynaynaa gurmad degdeg oo horey loo arag Soomaalida dhexdeeda inuu ka sameeyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh